حالتان كورمبل هاد عوسك ميا ما شاء الله ما شاء الله ما قبلوا جرا هدسن صدح بلاد سغاشن كيس عشوا او قودا مالينا مركان ها ما شاء الله ما شاء الله هذا لا وينها اصير وين في زمان ما شاء الله عوسك ما جبت مدينه صافي كدفتي فقط سير في سنه كان واي يوك ما شاء الله بركه sida ka muuqato videoyadan meeshan waxa waaye afgooye oo cawska Mombasa grass ama Siambasa panicum Siambasa lagu abuuray beerley isku tashtay saini nakatwa cawskan Mombasa grass waa caws cajiib ah sida uu qurxan yahay yacni cawsaska wuxuu ka mid yahay aad ka cajiib kuwa insha Allah xogteedana way noo soo socotaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارته وإذن سلامي أصحابتا نوو حيران channel كنغا يكوا نغلا سعودة كور نوو صابيرا ندهي لها إن شاء الله channel كاسي سبسكرايب غريو دادك غارسية كلا أو مارتا سومالي دا أو حولها دقاتو أما وحبيرتو انت دانينيسو إن شاء الله بيرها يا وحكو سابسن إن شاء الله فيديو هذا أن هذا الكوري أكيسين وحالة ده panicum Mombasa grass panicum maximum أما Mombasa grass أما Siambasa grass أيالا ده عوسكان وحو كميد يهي عرفية حولها كوا وطايا بدن أوريجينال كيسو وحو كسو جودا ودن كتنزانيا أفريقو كجودا كسو جودا لكن وايد الدنبا يعني وحالوه هرمريي ودن كبرازيل إيو مريكان كا magacyo kaleena la baxeen Mombasa grass la dhahaa Siambasa dhahaan marka muhiimada waxa waaye in calafka nooc yahay calafka noocyada calafkan deegaanada Soomaalida uu ka baxaa magacyo kala duwan baa loo yaqaanaa insha Allah magaciisa Soomaalida u yaqaanaan waa qoraalka ku arki doontiin insha Allah bismillah marka calafkan company-ga hormariyay company tropical seed ama effector solution كمبنيغاس maartay yaaba xagga horumarinta ku sameeyay waana calaf xagga tayadiisa aad u fiican tahay bal aan eegno waxyaalo ku fiican yahay biidillah characteristics of Siambasa grass يعني calafkan waxyaalaha uu aad ugu fiican yahay maxaa kamid ah number 1 waxa waaye very rustic plant يعني waxa waaye caws يعني iska simple ah iska hadi ah يعني meel walba ka baxa yu ka bixi karaa sidoo kale cawskan wuxuu kaloo leeyahay waxyaalaha lagu garto waxa waaye wuxuu adkeysan karaa tolerance to salinity cusbada dhulka يعني cusbada leh ama dhulka kulay waxba lagu yeeraa cusbeel ma la dhahaa dhulka yani cusbada leh wuu u adkeysan karaa xagga cusbada sidoo kale wuxuu adkeysi u leeyahay resistant to pests and diseases yani wuxuu adkeysan karaa cayayaanka iyo cudurrada waa u adkeysi badan yahay markii baaritaanka lagu sameeyay waana wax maaragtay caws meel walba ka baxo yani dhulka qabow dhulka kulul yani meel walba uu ka bixi karaa wuxuuna u adkeysan karaa labadaas oo korobyada badankood dhibaan dalag walba la abuuranayo waxaa dhiba labadaas cudurka iyo cayayaanka sidoo kale cawska boqolkiiba 90 waxa waaye 90% leafy content uu leh يعني boqolkiiba 90 wuxuu u badan yahay xagga caleenta waana waxa ugu fiican marka laga hadlayo maartay xagga maartay calafka waxyaalaha aadka oo muhiimka oo waxa waaye inuu calafkaas yani xagga ma xoolaha uu yani digestionkiisa wax walba maartay waxa ku xiran inuu calafkaas laf lahayn yani caleenta u badan yahay marka leafy content waaye
in vitro digestibility waxaa lagu yiri yani waxaa waa it is up to 80%. يعني xoolaha digestibility-geeda yani siday u qaataan sida jirkooda yani cuntada u galayo markii lagu sameynayo yani baaritaan waxaa la isticmaalaa 3 qaab oo maaragtay lagu sameeyo yani baaritaan loogu sameeyo midkaas waxaa ka mid ah in vitro digestibility horta marka koowaad intaana digestibility-ga hore u galin yani habka uu nafaqada xoolaha u qaato digestibility macnaheedu maxaa waaye waxa is the amount available nutrients to feed or forage which is accessible or available to the animal's body yani waxa waa digestibility waxaa laga wadaa yani qiyaasta muxuu ahaa nafaqada laga helayo forage-ka calafka laga helayo kaas oo uu qaadan karo accessible يعني جيركا نفكا جيركا حولها marka waxa waaye digestibility waxa loo yani nafaqada jirka xoolaha galayo kuwaas oo maarta laga helaya calafka then adduunka marka la cabirayo marka digestibility see loo cabiraa marka waxaa loo cabiraa ilaa 3 qaab baa loo cabiraa mid waxa waaye conventional method kaasna waxaa la dhahaa FIVO mid kalena waxaa la dhahaa yani waxaa la dhahaa kan kalena in sacco or nylon bag yani conventional method يعني sacco muxuu ahaa nylon bag technique waxa waaye yani bac baa lasoo qaadaya calaf qalalan baa yaa muxuu ahaa yaa lagu ridayaa kadib bacda ayada waxaa loo ridayaa inay durdureen lahaato waaye then waxaa la gelina neefka caloosha gudihiisa si loo ogaado yani habka neefka uu cuntadaas uu waxaysanayo oo yani uu jirkiisa u gelinayo yani nafaqadaas jirkiisa ay u galayso ayadoo la fiirinayo bakteeriyada siday nafaqadaas hadiiba jirka xoolaha maxaa u galayso mid kalena waxaa waaye in vitro digestibility marka waxaa laga wadaa artificial yani qalab oo artificial la isticmaalayaa oo kaas oo yani mimikaranay ama iska dhigay sidii neefka calooshiisa oo kale yani bakteeriyadii caloosha neefka ku jira cawska Mombasa grass waxyaalaha kale ku fiican yahay waxa waaye xagga proteinkiisa aad u sareeyaa waxa waaye 16 ilaa 18% waxay ka dhigan tahay marka xagga caanaha inuu xoolaha u badinayo oo caanaha doo maadaama uu proteinkiisa badan yahay caanahan uu kordhinaya double jibaar buu ka dhigayaa sidoo kale عوسكان يعني fast cut ماشي هذا حنا موقته fast cut about 50 days later repeating the harvest after 25 days with the height of 1.2 meter يعني عوسكان waxaad ku jari kartaa horta first time qalbo waxay ku xiranta jawiga hadda wadanka lagu xeeyo waa Mareykan xilliga la sameeyay video la duubay waxay ay jawiga aad u kululaa yani wuxuu ku tusinayaa cawskan marka koowaad oo beerto xilli jawiga kulul yahay hadaad beerto dhaqso koraya yani mostly waxaa la sameeyaa waxaa la siiyaa 90 days laakiin to this experiment ay la sameeyay waxay ku jiraan content bari marka hore laakiin si aad maartay khalad kaaga dhicin oo maartay ugu tala gasho oo maartay cawskan si u balaarto waxaad sameeysaa waxaad u jartaa 3 bilood ama 75 days waad jari kartaa after that wixii inta ka dambeeyo kolba waxay ku xirantay jawiga lagu jiro climate-ka sidoo yahay waxa u jari kartaa after every muxuu ahaa 30 days 25 days waad jaraysaa waxaana jaraysaa 1.2 meter markuu gaaro 1 meter iyo ama 1 meter hadaad caadi aad ka rabto oo hay ka rabto 1 meter iyo barna waa markaad ka rabto sayliska waxaynayso waa mashiintii calafka jaraysay sida cajiibka u jaraysay waad aragtaan waxyaalaha cajiibka oo cawskan wax soo saarkiisa aad u badan yahay ilaa wuxuu gaarayaa 100 tan ilaa 120 tan sanadkii kolba wuxuu ku xiran yahay nafaqaynta sida u nafaqaysay
qaybtan waa qaybtii kambaniga cawska waa la diyaarinayaa habka loo diyaarinaya waad arki doontiin the end of result waxay noqon doonto insha allah haddaan sii wadno cawska siambasa grass ama mombasa grass productionkiisa wuxuu ka mid yahay cawsaska aad u wax soo saar badan xoolahana jecel yihiin oo ka mid yahay cawsaska ay ugu jecel yihiin waana dheerdheeraanaya 2 mitir buu gaarayaa waxaana hore idinku sheegay markii aad rabto inaad caadi u jarto waxaad ku jaraysaa 1 mitir iyo bar waa markaad ka rabto hay laakiin markii laga rabo silage waad ku daraysaa ilaa mitir iyo bar 2 mitir baad gaarsiinaysaa sidoo kale cawskan wax soo saarkiisa waxaan iri wuxuu gaarayaa ilaa 120 tan biomasskiisa dry matter markii la dhaho wuxuu ku xiran yahay kolba sida u nafaqayso sometimes wuxuu ku siin karaa halkii harvest yani every 30 days waxaad ka heli kartaa hectarkii waxaad ka helaysaa hectar ahaan u sheegaya hectarkii waxaad ka heli kartaa ilaa 14 tan ilaa 16 tan 20 tan xataa waa gaarsiin kartaa kolba wuxuu ku xiran yahay nafaqada mar walba waxaa laga rabaa markaad goosato inaad nafaqayn karto digada xoolaha ku nafaqayn karto waxaan waa asagii oo la jaray oo habka loo qaabeeyay waad aragtaa kolba wuxuu ku xiran yahay adiga si aad u nafaqayso marka cawskan ka waran markii loo barbar dhigo cawskan iyo mulata 2 cawskan horta mulata 2 almost waa cawsas iska agdhow xagga maartay qaabka isku family bayihiin mulato bracaria family iyo Mombasa grass ama siambasa Mexican siambasa waa iska wada agdhow yihiin marka sida aad ka aragtiin cawskan waa asagii oo la jaraya marka labada caws waa iska agdhow yihiin xagga qaabka laakiin waana isku family ahaan kor markii laga fiiriyo laakiin waxyaalaha ku kala duwan yihiin waxaa waaye Mombasa grass kor ahaan u baxa oo waa dheer yahay xagga dheeraanta aad buu dheer yahay si aad videoyaasha ka aragteen oo videoga ugu horeeyay oo afgooye lagu abuuray waa asagii oo afgooye lagu abuuray kanna waxaa waaye videoga hadda intusayo oo duubaya waxaa waaye isagoo lagu abuuray Sacuudi Carabiya aad aragtay kuleylka soo kulul yahay yani meelaha kulul cajiibka cawskan lagu tastagareeyay si fiican buu maartay uga baxayaa marka asaga kor buu u baxayaa Mombasa mulata 2na caleentuu daadinaya kanna muxuu u baxayaa kor ahaan u baxayaa yani kor buu u kala daadanaya caleentiisa geesaha u kala daadan laakiin kor buu u baxayaa wuu kala daadanayaa waad aragtaan hadda cawskan xilli hore la abuuray ayaa la goynayaa maxaa xilli hore loo goynayaa isagoo weli xaggi flowerinka gaaray waa laga rabaa in la qalajiyo oo laga dhigo hay ahaan laga dhigo markaas waxa weeye cawskan sugar contentigiisa iska badan marka in la qalajiyo ku fiican yahay mostly haddaad qalajinayso xilli hore uu yar yahay yuu ku fiican yahay isagoo yaroo maaragtay weli aan maaragtay gaarin xilliga maaragtay uu silage looga waxayn lahaa